تكالي تولك يوحن له نمانكي شالي كاينتا كادلي وسيردو كهدليين ملاها ميشا شقاو تغيانو تغين قديادو تغين كاينتا كادلي شالي قد بورسنا عدكا كما متلان محد عسا كما متلان عبر موسى كما متلان iyagana inta baanu sheegaynaa dawladana waanu sheegaynaa dadkana waanu sheegaynaa dhawaaqooga maqlay waxa weeyaan waa dameer iska ciyay waxa weeyaan maaha waxay ku matalaan gada bursi maaha dawladana waxaan leeyahay waad ogtahay nabaddu halkii dagaalku ka yimid ee lagaga baaqay nabaduna halkii bay taallaa bagarbada dar bay taallaa sheegayaa halkan ka sheegayaa u sheegayaa ragga dhulkooga inay u dhintaan naftooda u huray halka tagay waryaan la idisaasin cadawgu maaha ka iska soo horjeedaan xabada isku ridaysaan uu badan yahay dawladda waxaan leeyahay dagaalka ku socda Somaliland haduuna ahayn dagaal Somaliland ku socda oo beesha gada bursi ku socda ay iskaga baxdo beesha ciisiya beesha gada bursi kala baxaan shirka yagan jaraa'id wuxuu daaran yahay waxaan ka fajacnay baan aragno siba aan u socon oo aan loo kala garanayn wali iyo miir qab waxa weeye nimanka dawladda sheeganaya halkaas soo socda oo aan kala garan weynay inay Djibouti u shaqaynayaan inay Ethiopia u shaqaynayaan iyo inay Ciise u shaqaynayaan marnaba aanan u arag inay Somaliland u shaqaynayaan waayo waxa weeye dadka bini'aadmigu wuxuu ku bogsadaa runta ayaa lagu bogsadaayo dawa dadkan runta uma kala sheegayaan ما يشري واحد لقول دقاقي واحد لقول دواقي حب الجوجين كبعدي أنا قاعدا كي أنا جواب الله وير ريبا عيدا كيجي وكبح على الوطن كودلو كوجي يقول شوفه تاسينا حقنا الله جماله نما كاس أنا جي الدولة ده إسكا كايور كينيا أدي أي دولة ده أركي ويدو أنا جو سومالي لامبان هاي سومالي أنا وان شاء الله دولة ده وحن وشيء جينا نما كان لفتو ده إنه الله حسابهم بل سيدان أي وحوضان إيا وحن أي كجيران إيا قرشة جعدان إيا كعاديسين تددك يا لما كان واحد دقيقي وهي وكف الله وهي قرحي بورا ما يكسميني أنت كل مات هدي دولة أي نمان كان وحكا قبن ويدنا وسيرة الشيغان أي تهورتا وحالكا كدعا ودمشق أنا وقول كهرباء دمشق وان سكود يبنو دمشق كم بقين ويدل كيجي بالنوجيم نين أقل كيسي لوجيم دولا ده فديو ولي بالله هنجبيه أو لوجا ده هنجبيه إيه وقب عليه نقل كاغا وقطك وعقلك كلام ما هتاس عدالتنا ماها وحوي أن عيسى إثيوبيا كيم جيبوتي بو كيم dad muwaadiniina maaha intii halkan deganayd maaha waa dad soo duulay oo intii halkan deganayd u yeedhay muwaadiniin Somaliland maaha waxa weeye muwaadiniinta dadkii muwaadiniinta ahaa ee cashuurta bixinayay ee dhulka deganaa iyay haddana lugta u qabanaya eelhaa waa dhulkayga iga tagtay anuu muwaadin baan ahay oo kolka la isku dhaco intay daawadaan haddii ciidanka Ethiopia jabana waa la kala dhex gelayaa dadka reer Somaliland ee muwaadiniinta hadday jabaanna waa la deynayaa waxaasi wax yacno caqliga geli kara maaha waxaanan u aragnay annagu haddaan odayadii awdalnahay dad la dagaalamaya Somaliland una jeeda Somaliland dadkana aan wanaag dhexdooda keenayna dabka dhex shidaya
taasi waa taa ta kale waxaan la hadlayaa tolkayo samaroon weyne tolkayo horta raalligelin baan idinka siinay odayadii dee sida siidhiga loo afuufay ee halkaa ka hadlay shalay ee isagoo aqalkiisii la dhex fadhiya nabad aqalkiisii baa la dhex fadhiya uga baxoo nabad qaadaa lagu yidhi waan qaatay kuwii yidhi nabaddii ee arrinkii gadabuurso oo dhan taladiisu u taallay isku raray horta arrinkaasi miirqab maaha malaha dee waxbaa la siiyo waa ka yaabanahay annaga laftayadu tolkana waxaan ka siinaynaa raaligelin waxaanan u sheegaynaa tolkayo samaroon weyne inaanu waxyaalaha noocaasi damiirkiisa iyo dadnimadiisa iyo ujeeddadiisa iyo dhulkiisa lagu soo doontay aanu wax u dhimin waxa weeye waxa la og yahay oo ay og yihiin raggana dhex maraysanayaa shalay kolkii dhagaxa lanoo dhigay lughaya ee aan jagooyinkeeda qaybsananay ee somalilan ay noo dhigtay damacani inaanu jirin bay og yihiin waxaa kaloo la og yahay dadkay eeg damacani inaanu horta wax fog ahayn damacani waxaan qabnaa annagu somalilan inay damacanba dabada ka wadda iyo dadkan etoobiya ka yimid waxaanan u sheegaynaa wax walba waa la garanayaa soomaali meeshay doontaa joogtee gobolka awdal yaa dega haddii la yidhaah cidda degta dee waa la garanayaa bal soomaali meeshay doontaa joogtee waxaad tidhahdaan gobolka awdal yaa dega oo degaan u leh waa la yska garanayaa gadabuursi baa lagu odhanaya maahee wax waliba siduu yahay dadkii ogaa baan runta sheegayn anigu waxaan ciise loogu habranayo ee runta loogu sheegi laayahay ee waad gardarantao waad qaldantee joog loo odhan laayahay ma garanayo way se kala caddaantay haddii ay cabsi tahay iyo haddii ay jacayl tahay annagu dhulka iyaga kama tanaasuleyno dibna ugama baxayno waxaanan leeyahay odayada reerka war nima yahow istilaaliyo sida raggaasi u dhinteen ha u dhimanina wax tolkiin ka soo baxa maahae wax kale ninka ku hadle ee odayihii dee soomaalidu waxay tidhaahdaa nin weynoo qowl ka dhacay waa geed qolofi ka dhacday ha la isilaaliyo sheegayaa oon halkan ka sheegayaa oon u sheegayaa raggaa dhulkooga inay u dhintaan naftooda u huray halkaa tegey war yaan laydin saasin cadowgu ma aha kaad iska soo hor jeedaan aad xabadda isku ridaysaan wuu badan yahay is-ilaaliyaan iyagana leehay dawladdana waxaan leehay waad og tahay nabaddu halkii dagaalku ka yimiday ee lagaga baaqay nabadduna halkii bay taallaa ma garbadda dar bay taallaa iyo halkan ay jabhaddayada eri joogto ma taallo waxay taallaa halkay taallo waad ogtahe tag halkay taallo haddii aad daacad ka tahay dee waxaan salaamayaa odayada gadabuursi ee gandaha ee ugaasu iyo uu ka mid yahay guddida iyo samaroon weyne dhammaantii iyo wixii islaam ee ummadda nebi maxameda iyo dowladda somalilan madaxweynaheeda iyo madaxweyne ku-xigeenkeeda iyo xukuumadda dhammaantiiba nin walba maqaamkuu leeyahaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu intaa markaan dhaafo anigu ma yihi dadka tiifiyada taagan ee mar walba hadla ee dharaar walba wuxuun ku hadla ma yihi laakiin maanta waxaa isoo kiciyey waxaan ka maarmi waayey inaan ka hadlo ka maarsan waayey ayaa isoo kiciyey waa waxa socda bilahan iminka aan ku jirno iyo wiiggana ku jirno labadaba dagaalka ka socda gobolka awdal xeebihiisa ma dagaal somalilan lagu soo qaaday baa mise waa dagaal laba beelood oo reer lagu soo qaado oo beela islaynayaanoo
muxuu ahaay ay xaafadeed ma dagaal xaafadeed baa oo beela ah oo qoysas iyo muxuu ahaa wada degan oo beela ah baa mise waa dagaal lagu soo qaaday Somaliland waa dagaal Somaliland lagu soo qaaday marka hal lagu soo qaaday halkee laga soo qaaday waxa laga soo qaaday dalka dibadiisa wuxuuna ka soo galaa xuduudaha dagaalkii dalka dibadiisa laga soo qaaday ee lagaga baaqay City iyo Djibouti waxa weeyaan kii uunbaa xuduudda ka soo galay oo gaadhay degmada Lughaya dawladdaanu ku socdaa meeshan ay dawladdu wax ka raadcaynayso ma garanayee kolkaan iminka sifahan aan wax u socdaan eegno malaha dee waxaan dawladdaaba wadda oo wax dawladdu wadda maaha wax muxuu ahaa cidi dibadda ka soo qaadayba maaha dawladda waxaan leeyahay dagaalkaad ku socda Somaliland hadduuna ahayn dagaal Somaliland ku socda oo beesha Gadabuursi ku socda ay iskaga baxdo beesha Ciise iyo beesha Gadabuursi ha kala baxaan yaanay dhex meeraysan yaanay midna dhinac saarin ha iskaga dhex baxdo iyada dawladda intaa baan leeyahay nimanka wasiirada ee dhex meeraysanaya kolla sii biligle kolla soo biligle gobolka kolla ka noqonayo kolla ku soo noqonayo colaad bay ka hurinayaan ee colaad ma daminayaan to iyagu huriyeen u baa ka socota anu sidaan u arko waxa weeyaan haddii dagaalka ay celinayaan xuduudaha ha istaagaan ha xidhaan qoriga lala soo galayo ciidamada soo galaya hubka soo galaya intaa ha celiyaan dadka guduhuna islaynba maayo marka dadka ka dagaalamaya gobolka degmada Lughaya ka dagaalamaya xuduudu ka soo galay maaha dadkii deegaanka dadka deegaanku kolka horeba isma haysan dagaalku halku ka soo bilaabmay iyo halku imika sii socdo waa la ogyahay haddii dagaal la baqtiinayo halku ka soo bilaabmay ha laga baqtiyo xuduudii uu ka soo gudbay ha laga xidho ha laga baqtiyo ka soo galayana ha la qabto ka guduhu markaa nabad buu iska yahay marka horeba dagaal ka guduhu kuma baaqin kaa dawladda intaa baan ka leeyahay ta kale tolkay waxaan leeyahay nimankii shalay kaynta ka hadlay ee wasiiradu ka hadliyeen ee malaha meesha shaqo u tegay aan u tegin qadiyad u tegin ee kaynta ka hadlay shalay Gadabuursina codkaa kuma matalaan Maxad Case kuma matalaan Habar Muuse kuma matalaan iyagana intaa baanu sheegaynaa dawladdana waanu sheegaynaa dadkana waanu sheegaynaa dhawaaq uga maqlay waxa weeyaan waa dameer iska ciyey ee waxa weeyaan maaha waxay ku matalaan Gadabuursi maaha Gadabuursiga ugaaska iyo gandaha Gadabuursiga ee dhawal u yahay gudoomiyaha waan ka raali gelinaynaa codka shalay Gadabuursi waan ka raali gelinaynaa kuwaan kula soconnana maaha ku ina khuseeyana maaha iyagana intaasaan leeyahay waxa weeyaan ciidamada madaniga ah ee difaacaya dhulkooga waan hambaliyaan idin leeyahay waan idin hambaliyeynayaa cadowgu wuu badan yahay kaa dibadda ka eegaysaanuun maaha gudahana wuu joogaa tolkiin buu ku dhex jiraa ilaah bay amuurtuun lagidahay iyagana iska ilaaliya iyaan leeyahay nabadda annagu maanaan diidin dagaalla kuma anaan baaqin haddii iminka nabad la helayana ma aanu diidin laakiin nabadda halkay ka xidhmaysaa waxay ka xidhmaysaa halkii colku ka soo bilaabmay bay ka xidhmaysaa ha laga soo xidha halkii annagu haddaan nahay beelaha Gadabuursi waxa weeyaan arrinka iyagu wuxuu ka go'aa guddida guud iyo ugaaska nabadda iyadoo halkaa meel ka hoosaysa kama go'do dawlad iyo shacab
iyo dadka islaamkaaba intaa baan nuu sheegaynaa allah assalaamu calaykum allah mahadle assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu